السلام عليكم. ugu yaraan 163 Falastiiniyiin iyo 6 sargaal oo booliska Israa'iil ayaa lagu dhaawacay maalinimadii Jimcada ahayd isku dhacyo ka dhacay magaalada Qudus sida ay sheegeen dhaqaatiirta Falastiiniyiinta iyo booliska Israa'iil. haddaba waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa maxaa sababay in Yahuuddu ay gudaha u gasho Masjidul Aqsa iyo boobka cusub ay Israa'iiliyiintu ku hayaan muslimiinta reer Falastiin, maxaase la gudboon in weerarkan ay kaga jawaabaan caalamka muslimiinta. ma runbaa in sirdoonka dalka Turkiga iyo kuwa Sacuudiga oo iskaashanaya ay ballan qaadeen in ay baaritaan ku samayn doonaan arrinkan keenay in Masjidul Aqsa aan lagu dukan? ugu yaraan 163 qof oo Falastiiniyiin iyo 6 sargaal oo booliska Israa'iil ayaa lagu dhaawacay isku dhacyo ka dhacay Jimcihii magaalada Qudus sida ay sheegeen dhaqaatiirta Falastiin iyo booliska Israa'iil. intooda badan waxa ay ku dhaawacmeen Masjidul Aqsa, halkaas oo booliska Israa'iiliyiintu ay ku ridayeen rasaas canjar iyo bamgacmeedyo, iyadoo Falastiiniyiintuna ay ku tuurayeen dhagxaan iyo dhalooyin. haddaba maxaa sababay in booliska Israa'iil ay gudaha u galaan Masjidul Aqsa? rabshadahan ugu dambeeyay ayaa bilowday habeenkii Jimcaha kadib markii kumanaan qofood ay isugu soo baxeen halkaas si ay ugu cibaadaystaan Jimcaha ugu dambeeya ee bisha barakeysan ee Ramadaan. booliska Israa'iil ayaa sheegay in ay xoog u adeegsan doonaan cid kasta oo ka hor imaata amaradooda, waxa ayna bilaabeen in ay qoys u barakiciyaan bulshada reer Falastiin. bishaas ayaa waxa ay furtay isbitaal lagula tacaalayo dhaawacyada dadkii masaajidka Al-Aqsa ku waxyeeloobay. masaajidkan ayaa ku yaala magaalada Qudus, waana mid ka mid goobaha barakeysan ee diinta Islaamka aadka loogu ixtiraamo. laakiin sidoo kale Yahuudda ayaa iyadana u aqoonsan goob barakeysan oo ay leedahay oo ay u yaqaanaan macbadka buuraha. mid ka mid maamulka masaajidka Al-Aqsa ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo isaga oo adeegsanaya mikrofoonka masaajidka. boolisku waa in uu si degdeg u joojiyaa bamgacmeedyada uu ku ridayo masaajidka. dadka cibaadaysanayana gaar ahaan dhalinyarada waa in ay isdejiyaan oo ay aamusaan. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay maamulka masaajidka oo sidaa leh. adeega gurmadka degdega ee bisha cas ee Falastiin ayaa sheegay in 88 ka mid Falastiiniyiinta dhaawaca loo qaaday isbitaalka, halka booliskuna ay sheegeen in qaar ka mid 6 sargaal ee dhaawacmay ay u baahan yihiin daaweyn caafimaad. haddaba maxaa ka jira in sirdoonada dalka Turkiga iyo kuwa Sacuudiga oo iskaashanaya ay baaritaan ku samayn doonaan rabshadihii ka dhacay magaalada Qudus? maxaa ayse ka tiri beesha caalamka? beesha caalamka ayaa codsatay in xiisadda la dejiyo, taas oo markii hore ka dhalatay hanjabaado loo geystay qoysas reer Falastiin. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Washington ay aad uga walaacsan tahay xiisadan kacsan. isuduwaha gaarka ee qaramada midoobay ee geedi socodka nabadda bariga dhexe Tofan Islam wuxuu ku booriyay dhammaan dhinacyada in ay ixtiraamaan goobaha barakeysan ay ku sugan yihiin ee ku yaala magaalada Qudus. qaramada midoobay ayaa ku baaqday in Israa'iil ay joojiso barakicinta isla markaana ay xakamayso adeegsiga awoodda ee ka dhanka shacabka reer Falastiin.